جولييت iyo Romeo waa qiso jacayl oo dhaba si dhaba ay u dhacday waa qiso cajiib ah oo dunida oo dhan laga yaqaano sheekadani waxay dhacday 800 oo sano ka hor waxay qisadani ka dhacday magaalada Verona ee dalka Talyaaniga Romeo iyo Juliet waxay ka dhasheen laba qabiil oo wada dega magaalada Verona ee dalka Talyaaniga Juliet oo ah gabadha waxay ka dhalatay qabiil loo yaqaan Capulet oo Romeo wiilkuna wuxuu ka dhashay qabiil loo yaqaan Montagu labadan qabiil si daran ayay isu nacab yihiin waxa ka dhaxeeya dagaal maalmaha kamid ah ayaa waxa goob dagaal isaga hor yimid labadan beelood seefta ayaa la isla helay waxa faras saaran Juliet oo ah gabadha iyadu dagaalka qayb kama aha balse waa ay daawanaysaa Romeo wiilka ayaa waxa uu ka adkaaday qoladii ama beeshii gabadhu ay ka soo jeeday ee Capulet-ka loo yaqaanay kadib waxay ishiisu qabatay Juliet oo faras saaran indhaha ayay isla heleen in muddo ay indhaha iska qaadi waayeen sidii inay hore isu yaqaaneen oo kale aad ayay indhaha isula raaceen hal mar oo qura isha iskama aysan qaadin ilaa gabadhii raggi la socday ay dib u gurteen iyaduna ay faraskeedii dhaqaajisay talow ma alle ayaa isku qoray oo qulubtooda miyaa magnad isku soo jiidaya uu ku jiraa moogid habeennimadii Romeo iyo Juliet labadooduba midba midka kale ayuu ka fikirayay Juliet uma fududa inay dareen u qaado wiil ka soo jeeda qabiilka Montagu falcelinta ay waalidkeedu keenayaan ayaa taasi qayr macquul ka dhigaysa talow yaa ku tusay ruuxan qalbada ka xaday ay niyadda iska leedahay Romeo wuxuu hore u jeclaa gabadh kale balse daqiiqadii uu arkay Juliet waxa go'aan adag ku masaxmay wixii uu dareen u hayay oo dhan isagu waa dagaalyahan reerku ku faano inuu jeclaado gabadh cadowgooda ah waxay u tahay dhabarjab weyn waana dhamaadka xiriirka kala dhaxeeya qoyskiisa magaalada ay labadan qabiil ku nool yihiin waxa ka taliya nin boqora sidaas darteed boqorku waxa uu ka soo horjeedaa labadan qabiil dagaalka u dhaxeeya Romeo wuxuu raadinayay fursad kale oo uu kula kulmo Juliet niyadiisa ayay ka bixi weyday wax kasta oo uu sameeyo saaxiibkiisa ayuu u sheegay in Juliet walaasheed caawa la meheri doono loona meheri doono nin la yiraahdo Paris xafladaas waxa iman doona dhammaan qoyska Capulet-ka oo dhan Romeo wuxuu qaatay go'aan khatar ah wuxuuna ku dhiiraday inuu cagta dhigo xafladaasi oo uu tago si uu soo arko Juliet wuxuu soo galay hoolkii xafladda dad aad u fara badan ayaa midba mid la heesaya oo la jaasaya Romeo wuxuu raadiyay Juliet waxa uu yimi Paris oo aan ninka mehersanaya walaasheed wuxuu ka codsaday inay wada jaasaan balse waa ay ka cudur daaratay ninka Paris la yiraahdo waxa uu damac kaga jiraa Juliet walaasheedu caawa loo meherinayo waxba dan kama leh cajiib cabaar kadib waxa isla Juliet iyo Romeo in badan ay indhaha isku hayeen ka hor inta aysan wada hadlin halkaas ayaa waxa uga bilowday wada hadal aad u dheer iyagoo wada ciyaaraya isla markaana wada jaasaya iyagoo sheekadu u socoto ayaa waxa soo baxay Tablet oo ah Juliet in adeerkeed wuxuu jiitay oo qoorta qabtay Romeo meel luuq ayuu la tagay wuxuuna ku hadaday inuu dilayo haddii uu dib dambe ugu arko Juliet agteeda ninka Tablet la yiraahdo waxa uu doonayaa inuu nolol la wadaago Juliet ama uu guursado Juliet oo ay adeertiis halkaasi kuma dili karin maxaa yeelay boqorka magaalada ayaa joogay halkaas ay Romeo iyo Juliet habeenkaasi ku kala tageen iyagoo is arkay balse aan si wacan u wada sheekaysan Juliet habeenkii xigay iyadoo balkoonka qolkeeda fadhida aadna uga fikiraysa Romeo ayaa waxa guriga ay deganeed u soo dhacay Romeo iyadoo aan u jeedinayo gadaal uga yimi way naxday si farxad ayaa xigtay in cabaar ay halkaas ku sheekaysteen iyagoo sheekadii meel dhex u marayso ayaa waxa qayliyay eegii guriga ilaalinayay oo arkay faraska Romeo durba waxa soo baxay Tablet oo ay adeerkii jeclaa Juliet xagga hoose ee guriga ayuu taagnaa Tablet Romeo wuu dhuntay Tablet ayaa Juliet weydiiyay waxa ay xilligan dabada u taagan tahay waxay u sheegtay inay leersanayso
wuxuu weydiiyey inuu u iman karo waxayse tiri maya iga raali noqo waan sii socdaa macnaha waan seexanayaa ee habeen wacan romeo iyo juliet dib ayay sheekadoodii u balowdeen in muddo ayay sheekaysanayeen habeenkaasi labadooduba farxad ayay ku kala haydeen juliet gurigeeda ayay ku soo laabatay waxayna la kulantay walaasheed oo aad u xanaaqsan walaasheed waxay juliet ku eedaysay inay ninkeeda ka qaadatay oo ay khiyaamaysay waad khiyaantay walaashayay waxaad iga toogatay dhabarka ayay tiri juliet waxay walaasheed u sheegtay inaysan iyadu haba yaraatee aysan waxba kala dhaxayn baris oo aan ninka ay walaasheed jeceshahay isaguna juliet jecel juliet gabadhii daryeeli jirtay ayay fariin waraaqa ugu sii dhiibtay romeo waxayna ku ballameen kaniisadda si ay isugu mehersadaan iyagoo aysan ogayn waalidkood ninka kaniisadda verer lorenza waxay ka codsadeen inuusan meherkooda cidna u sheegin wuuna aqbalay iyaga oo faraxsan ayaa waxaa albaabka soo garaacay tiblet oo ah ina adeerka juliet durbadiiba romeo waa u dhuuntay juliet waxay u sheegtay inay meesha ku cibaadaysanayso iska baxayay tiri marka aan soo dhammaysto ayaan kuu iman waynu israaci markaas buuq fara badan kadib dibadda ayuu u baxay tiblet sidaas ayay juliet iyo romeo ku noqdeen lamaane wada nool balse aan haysan ogolaanshaha qoyskooda romeo iyo juliet waxay isu diyaariyeen inay halkaasi ku kulmaan oo ay si wanaagsan isugu arkaan juliet iyo qoyskeeda uma sheegin in xiriirka ka dhaxeeya ninkan uu jiro balse waxay la wadaagtay gabadha ilaalisa ee guriga ku daryeesha gabadha daryeesha waxay juliet kula talishay inay iska ilowdo romeo iyada oo u sheegtay inaan ragga la aamini karin balse waxba kama aysan maqlin juliet iyo romeo waxay mar labaad ku kulmeen xafladdaasi iyagoo isag taagan ayaa aabbaha juliet wuxuu dadkii meesha joogay u sheegay in juliet uu siiyey baris oo aan ninkii walaasheed horay loo siiyey isaguna jeclaa juliet wadnaha ayaa istaagi gaaray naxdin ayay la beergo'day dhulka ayaa la wareegay meel ay joogto ayay garan weyday romeo ilinta ayuu ceshan waayey saaxiibkiis crucio ayaa laabta geliyey wuxuuna u sheegay inuu isdejiyo durbadiiba tiblet oo ah julietina adeerkeed ayaa goobta soo galay wuxuuna kalar ka jiirtay romeo dibadda ayuu geeyey wuxuuna u dhiibay seef isagoo ku yidhi iska kee celi romeo haddaad intahay ama waadi dili ama aniga ayaa ku dilayaa romeo wuxuu yidhi ma kula dagaalamayo waxaa jira sababo fara badan oo aan kula dagaalamayn dharbaaxo ayaa romeo lagu dhiftay balse wax gacana ma qaadin waayo waxa uu oofinayaa ballan ay juliet hore u wada galeen oo ahaa in nabadda qoyskooda ay ka shaqeeyaan oo ay labada qoys u soo dhoweeyaan heshiisna la gaaro si uu jacaylkoodu u waaro dulqaad fara badan ayuu romeo muujiyey balse hal mar ayaa waxaa dibadda u soo baxay crucio oo ah saaxiibkii romeo wuxuuna la booday seeftii isaga oo yidhi tibletow romeo dagaalyahan ma aha ee waa mucashaq ee aniga iska kee celi crucio iyo tiblet ayaa seefta isla helay qacda ayaa yeertay romeo wuxuu isku dayey inuu kala qabto balse waa awoodi waayey romeo oo ah saaxiibka crucio ayaa waxa uu isku dayey inuu qabto saaxiibkiisa crucio balse isagoo haya ayaa waxaa caloosha kaga dhacday seef aad u af badan dhulka ayuu ku dhacay halkaasina waxaa ku qodhga'ay oo ku geeriyooday saaxiibkii romeo uu dunida ugu jeclaa kaasi oo ah crucio intaasi kadib maxaa dhacay la soco qaybta labaad